السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتا سو دhowaada waa sabti 1 November 2025 barnaamijkeena maanta insha Allah tacaala waa war degdeg ah oo shalay aqalka cad ee dalka Mareykanka ka soo baxay kaas oo aan rabo inaan idinka dabageeyo wixii ka soo kordhay waxaan ugu saabsan yahay dadka qaxootiga ah oo soo galootiga ah gaar ahaan dadka refugee-ga ama qaxootinimada ku soo gala kuma jiraan dadka asylum-ka oo nabadgelyada doonayo iyo dadka parole-ka ku soo gala dalka Mareykanka oo sponsor iyo waxaas ku imaada laakiin dadka qaxooti ahaanta loo qaabilayo oo xiriyaha qaxootiga laga soo qaadayo waxa ay ka dhigi doonaan baa la yiri 7500 oo qof kaliya sanadkii hore uu joogay madaxweyne Joe Biden waxa la qaabilay dad qaxootiya oo magaca refugee wata oo gaaraya 100,000 oo qof hadda se sanadkan 2026 madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu sheegay in 7500 kaliya la qaabilayo 7500 nafteeda magac buu u siiyay oo dad gooniya ayuu rabaa inuu mudnaanta siiyo dadkaas oo ah cadaanka ku nool South Africa oo Afrikaners loo yaqaano soo 7500 oo qof oo qaxooti ah ayaan qaabilaynaa buu yiri oo 7500 oo qof kaliya ay noqon doonaan dadka cadaanka ah oo South Africa laga keenayo maadaama madaxweynaha dalka Mareykanka uu aaminsan yahay in cadaanka ku nool South Africa dhibaato ay ku hayaan madowga ku nool ama ka badan majority ka ah dalkaas ku nool South Africa marka waxa uu sheegay 7500 oo qof kaliya la qaabili doono sanadka 2026 taas oo meesha ka saaraysa dadkii faraha badnaa oo qaxootiga ku soo gali jiray ama Afghanistan ka imaadaan ama Syria ka imaadaan ama Soomaaliya ka imaadaan ama Ukraine ba u badnaadaan in meeshaas laga saaray qaxooti kale oo la qaabilayo oo wadamo kale ka imaanayo kulli ma jiraayo 7500 wuxuu yiri cadaanka South Africaanka ah ayaan rabaa inaan mudnaanta koowaad aan siiyo dadka reer Yurub iyaga naftooda hadii dawladooda ka hor imaadaan iyaga oo ka soo horjeeda siyaasadaha dawladda ay ka tirsan yihiin ayagana wuxuu sheegay in uu siinayo gaar ahaan siyaasadaha dawladahooda ay ku dhaqmaayaan oo ku saabsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah ama soo galootiga ama immigrants-ka ah dadkaas haday ka soo horjeestaan iyagana waxa uu dhahay mudnaan baan siin doonaa laakiin haddeer waxa si gooniya targetka ama oo ku fogan tahay sheekadan arrinkan ku saabsan cadaanka ku nool South Africa ama Koonfur Africa ayuu xooga saaraya 7500 waa markii ugu horeysay waxa la yiri numberkii ugu hooseeyay tan iyo dalka Mareykanka markii uu ka bilowday programkan 1980kii oo ay bilaabeen dad qaxootiya inay Mareykanka ku soo dhaweeyaan oo ay qaabilaan tan kale sanadkii hore san idin sheegay xilligii madaxweyne Joe Biden waxa qaxootiga la qaabilayo oo qaxooti ahaan oo refugee ahaan lagu keenayo oo ahaa 100,000 oo qof ayaa la qaabilayay waa markii ugu horeysay numberkii ugu badnaa oo soo gala xilligii Biden bay soo galeen madaxweyne Biden numberka ugu yar oo la sheegay ama la soo report gareeyna waa sanadkan waliba dadkii kale oo wadamada kale ka soo jeeday oo sponsorka maartay ama refugee-ga soo maray ama applicationadoodii waxoodii hore u soo pending ay ahaayeen oo hore u maray waxyaabo fara badan iyaga halkaas ayuu ku moosay oo wax qaxootiga oo u qaabilayo ma jirto markii zero noqotay qaxootiga la qaabilayay ayuu shalay waxay soo saareen aqalka cad ee Mareykanka in 7500 qof kaliya oo South African cadaanta Afrikanska u badan in la keenayo kaliya waxa jiro maxkamado iyo dad u dooda arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga oo iyagu arrinkan ka dhiidhiyay oo qalqaylinayo laakiin sanadkii hore hadii wax ka bedeli kari waayeen ama sanadkan bilowgiisiba markii January 20 madaxweynaha uu joojiyay soo galootiga qaxootiga hadii wax tari waayeen hadeerna inay wax tarayaan uma eka marka intaas ayaan rabay inaan idinka dabageeyo asxaabta si share gareeya insha Allah taala don't forget to like and follow insha Allah wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh